intaan daraasada u gelin gudaheeda waxaan rabaa inaan ka hormariyo shantan qodob ee hordhaca u ah shantan qodob markii maxaa la dhihi jiray aan soo bandhigo ood aragtaan ayaa waxaa noo sii furfurmaya fahamka daraasadda aan u qabno annagoo wax badan fahamsan ayaan u tegi doonaa. daraasadda magaceeda waa shanta gees shantan tiir ayaa hordhaca ah. kow sababaha keenay shanta gees ilaan wax walba sabab la-aan ma yimaadaan. sababta keentay aan rabnaa inaan dul istaagno. faa'iido ma leedahay shanta gees? waxaan faa'iido lahayn cidi kuma daarayso. daawo ma leedahay shanta gees? maxaa la dhihi jiray waxaan daawo lahayn aan waxba lagu dheefayninna maxaa la dhihi jiray cidu iskuma taxluujinayso. qodobka afraad yay qusaysaa shanta gees? wax walba ujeeday ku socdaane shanta gees yay qusaysaa. cidda ay qusaysana waan xusi doonaa. qodobka ugu dambeeya ama tiirka shanaad wuxuu noqonayaa waqtigeedii ma la joogaa daraasadda shanta gees? waqtigeedii maanta ma la taagan yahay? shantan qodob markii aan dhammayno qodob kasta waxaan ka bilaabi doonaa sababaha, sababaha keenay shanta gees, waxaan ku xijin doonaa faa'iidada ay leedahay, waxaan kaloo ku xijin doonaa daawada ay leedahay, waxaan ku xijin cidda ay qusayso, waqtigeeda in la joogo in kalena waan kala arki doonaa. waxaan isla soo gaarnay qaybtii ahayd daraasadda shanta geesa sababaha keenay. sababaha keenay waa shantan qodob. qodobka koowaad dhibaatada dibadda naga haysato, dhibaatada dibadda naga haysato oo ah shantan qodob. qodobka koowaad boobkii badda. run ahaantii qoladan badda inay boobto rabto waxay iska dhaadhicisay baddan khayraadka ugu jira ka qaado. maxaa la dhihi jiray walaal iyo qaraabo iyo tol iyo saaxiib ma lahan. markaad ka qaadatana hadday u badatay laba beri intay isu imaadaan ay soomaaliya toostoo qaadeen waa iska kala tegayaan. qodobka labaad damacii xeebta dahabiga. damacii xeebta dahabiga runtii qoladan waxay istiri dhul horad haysataan iyo dadkiisa, haddii aad haddana wax kale ku darsataan dhul horad haysataan iyo dadkiisa, markay idinkaga daba yimaadeenna dad baa idiin soo gurmoodo oo idinka dhiciyey, haddeerna dadkii way joogaane wax kale ka qaata macnaha. qodobka saddexaad DP World waa taqaanaan aan u malaynaa qof loo sheegaya ma lahan, waayadan aadan loo hadalhayo. qolada DP World hadda markaan ka tagno taariikhdooda runtii hadda ilmo yaryaroo lacag iska helo waaye, laakiin noloshoodii hore way caddahay. annaga qaaraankii iyo sakadan aruurinaan u geyn jirnay yah. marka waxaan leenahay abaalkii aan awoowayaashiina u galnay yah ha ka abaal dhicina. annaga walaalnimo iyo tolnimo islaamnimo ma diidayno, laakiinse abaalkaan idiin galnay ha ku dhigina hal bacaad laga lisay. lacagtan hadda waa laakiin xusuusta noloshii hore annaga dadkiina hore aan abaal ku leenahay. qodobka afraad xatooyada khayraadka. taas waa laga dharagsan yahay, faahfaahin uma baahno. xatooyada khayraadka. qodobka shanaad qashin qubka. waxaan iska noqonay qashin qub. meesha khayraadkeena laga xado ayaa bedelkiisa waxaa la geliyaa qashin wasaqaysan oo adduunka mamnuucka ah. qodobka labaad sababaha keena daan usoo gudubna dhibaatada gudaha naga haysato. runtii colaad oo wax sababay aan la garanaynin oo iska socota, cudur meel uu ka yimid aan la ogeyn oo iska socda, abaar oo waqti walba dhacaysa isku xigsanaysa sanad kasta. abaaraa dhacday, dad bin aadina hore ka dhintay, annaga leeba ka jirnaba adduunka qof inay abaar dhacdo
oo bini aadam oo ku xigsado tallaabooyin badanaa ka horeeya faqri dadkii wax la-aana la isugu yimid iyo darxumo meel kasta oo qofkeena uu jooga ku darxumaysan yahay taasi marag loo raadin maayo daawade adaybu ku qabsatay ama qof kale taqaanay qabsatay ama haddeerbo hortaaday taalaa darxumadaas ama ka fikir qodobka saddexaad dhibaatada naga haysata dowladnimada waan iska soo gaabinaynaa dhibaatada dowladnimada naga haysata soo fiiri halkaan xoog shisheeye xoog kale male xoog wuxuu noqday xoog shisheeye xal shisheeye xal kala ma hayno xalka ilaa xal shisheeye unbuu noqday xero shisheeye noqotay xero shisheeye meel kastoo lagu hadla u fiirso meel shisheeye uu leeyahay waa xulis shisheeye noqotay xandhadan xandho shisheeye noqotay dhibaatada naga haysata dowladnimada shantan qodob aan kusoo koobaynaa qodobka afaraad dhibaatada naga haysata dadka qodobka koowaad dil waa la isdili jira runtii laakiinse qof inta la dilo oo la gubo waa nagu cusub tahay taas dhac waa la isdhici jira runtii laakiinse cilmiyeysan oo xirfadaysan ayaa maanta la isku dhacaa boobkana sidoo kale waayo inta lagu boobaaba dembi dusha lagaa saara maanta kufsi qodobka ugu murugta badan kufsi waa la arki jiray laakiin cunug yar oo sakhiira inta la kufsado haddana la dilo lasoo jiido gurigooda hortooda la keeno wax noo dhinaa wartaas ya belada ka dambaysa way kasii daran tahay nacayb aan cilmi ku dhisnayn qodobka shanaad nacayb aan cilmi ku meel kasta tag nacayb aan cilmi ku dhisnayn ayaa la dhibaatada naga haysata nolosha soo fiiriya halkaan shaqo la-aana la isugu yimid موقف كش قلعان طلاقات إنه تهريب وسو بدله تهريب محود على قحوتي وضله قحوتي محود على حبسي مركز حنونه مالك استوى تكتاب قفكو حنوسيه عذر كاين مو يقان حنونه انهر له اركجري انا سككاي runtii sababaha keenay daraasadda shanta gees shantan qodob ayaan ku soo koobayna waxaana si degdeg haduu ilaahay idma aan geli doonaa daraasadda shanta gees ma leedahay faa'iido qodobkan qodobka ku xiga ayaan ku qaadan doonaa daawasho